ururka wadajir oo kamid ah ururada ka howlgala degmada 26 Juun ee caasimadda Hargeysa ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waana kuwan ugu horeyn gudoomiyaha ururkaasi wadajir Dr. Luqmaan Cabdiraxmaan Caydiid iyo xubno kale oo ka tirsan ururkaasi oo hambalyo u diraya madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisa. ama baad magacaygu waa Luqmaan Cabdiraxmaan Caydiid waxaan ahay gudoomiyaha ururka wadajir oo kamid ahaa urur bulsheedyadii ka qayb qaatay campaign-kii xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda 26 Juun waxaan maanta halkan hambalyo uu ka dirayaa marka hore dhammaan shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan sidoo kale waxaan u dirayaa hambalyo ka shiyalaaba komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo suuro galiyay inay qabtaan iyo inay soo saaraan natiijadii doorashada sidoo kale waxaan hambalyo iyagana u dirayaa in la soo koobi karin dhammaan xisbiyaha mucaaridka iyo taageerayaashooda oo iyaguna aqbalay kuna qancay natiijadii ka soo baxday doorashadii Soomaaliland inta kadib iyagana waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland ee waqtigiisu dhamaaday Axmed Siilaanyo iyo marwadiisa sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo marwooyinkooda oo ah magacaygu waxa weeyaan Gudoon Axmed Xasan oo ka tirsan garabka haweenka ee ururka wadajir ee xaafadda Daruuraha dhammaan waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliland yar iyo weyn waxaan leeyahay Soomaaliland ayaa guuleysatay ilaahayna waxaan ka baryaa guushaas tii inoo hana qaaday inuu ilaahay ka dhigo ama bacdi waxaan iyaga laftooda aan hambalyeynaya labadii nin ee la tartamay Muuse Biixi ee iyaga laftooda muwaadiniinta ahaa ee noo turay haddii aanay iyagu tanaasulin guulimay jirteen waxaana lagu fadhiyaa wanaag labadan in leeyihiin insha Allah bidmillaahi kariim Cabdiraxmaan iyo Faysal waxaan leeyahay insha Allah haweenka Soomaaliland way diisar kacayaan sidii adigu noogu tudhano madaxweynayaasha mustaqbalka soo socda ayaad insha Allah ku guuleysan doontaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan baadan jaamaca waxaan hambalyo u dirayaa shacabka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaheennii hore ee waqtigu ka dhamaaday Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadiisa Aamin Waris dhammaan waan hambalyeynayaa waxaan kale aan hambalyeynayaa labada xisbi ee macaaridka ee sida wanaagsan u qaabilay ee u tanaasulay ayaan iyagana hambalyeynayaa waxaan kale oo aan hambalyeynayaa madaxweynaha iyaga cusub Muuse Biixi Cabdi ayaan hambalyo qiimo leh aan u dirayaa ilaahayna waxaan iyo madaxweyne ku-xigeenka Saylici waxaan hambalyo bogaad u dirayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici